بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan soo nimid maantay oo runtii aan isleeyahay waxa weeyaan waa arinta Kilwe oo ah wariye ka tirsan warbaahinta Puntland oo muddo ku xiran xabsi runtiina aan la geen maxkamad runtii anagu melihin Kilwe dambiile ma aha qof kasto muwaadin ah dambi inuu galay inuu san galin waxa cadeyn kara maxkamadda laakiin waxa weeyaan in dastuurka la ilaaliyo oo Puntland idinka Soomaaliyeed waxa u yaala waa xeerar iyo qawaaniin yaal wadanka dastuurka qodobadiisa tirada badan oo halkan ku yaala oo ugu horeeyo qodobka 12aad oo ka hadlaya xorriyadda saxaafadda kan ka hadlaya 25aad oo ka hadlaya xaqqa iyo istifaacidda qofka macnaha eedeysanaha ah iyo kan 17aad oo ka hadlaya asaguna sidoo kale in qofka muwaadinka aan lagu hayn karin xabsi muddo 48 saac ka badan in maxkamad la geeyo mooyaan qofku waxa la rabaa in 48 saac ka dhaafto noqonayso sharci darro laakiin 4 gudahood in maxkamad loo geeyo qofkan lagu cadeeyo dambi leeyahay inuusan lahayn runtii anagu waxaan leenahay hay'adaha cadaaladda Puntland iyo amnigu in la xurmeeyo dastuurkan oo ummadda waxa ay ku heshiisay ah qofka muwaadinka aan uu dambiile noqon karo iyo inuusan ahayn wax cadeyn kara xukun maxkamadeed in maxkamad qofka la geeyo markaasna hadii uu Kilwe yahay dambiilena maxkamadda raba in qodobada ku soo eedeysay iyo wixii cadeyso asaguna xaq u leeyahay inuu qabsado qaraamo iyo inuu isdifaaco oo dhammaan ay yihiin artikalo ku cad dastuurka laakiin qofku inuu iska xirnaado mana aha xaq mana aha sharci waxaan leenahay sharciga in la ixtiraamo oo dhammaanteen aynu hogaansano qof weyn qof yarba qawaaniinta iyo sharciga dalka u yaala haddii qofka haddii Kilwe intaas uu dhaafay waxay u ekaanaysaa inuusan dambi gelin waa qofkan xorriyadiisa helo haddii kalena maxkamadda la geeyo oo wixii lagu cadeeyay iyo maarta procedure-ka la mariyo halkaasna ay ka cadaato wixii uu galay waxaan leenahay in la ixtiraamo dastuurka in loo hogaansamo shuruucda in qof yar iyo qof weyn iyo saxafi iyo dawladba aan ilaalino dastuurka wuxuu xaq u leeyahay oo kale in la booqdo in dadka maarta eheladiisa ay booqan karaan oo meesha ku xiriir ogaadaan oo xaaladdiisa caafimaad laga warqabo xaq u leeyahay in nafaqadiisa laga warqabo in la ogaado waxaas oo dhan waa xorriyadka bini'aadamka uu leeyahay dastuurku sheegayo aad iyo aad wanaagsan